الرحيم مقايق محمد عبد الرحمن ورديري دقن مينيابوليس مينيسوتا waxaan aad ugu faraxsanahay in dadka daanu nahay reer Minnesota aan aad ula soconno shirarka ka socda Asmara aan aadna u taageersanahay waxa ay akhyaartu wadaan iyo dadka wax garadka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hawsha meeshiina ka sii wada ummadda Soomaaliyeed oo kale waxaan u sheegaynaa wixii wanaag aad aragtaan hal la taageero wixii xumaanana laga hor yimaado aad baa mahadsantihiin. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed oo ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. Waxaan rabaa inaan ra'yi ka dhigto waxaan taageersanahay shirka weyn ee ka socda Asmara ee lagu taageerayo xiritaanka Itoobiya ee gumaysiga ku haysta Soomaaliya. Sidaa daraadeed walaalayaasheena aqliga leh ee muslimiinta ah ee wax fahmaya waxaan leeyahay ama aan kula talin lahaa inay taageeraan shirkaas iyo sida gumaysiga looga taagi lahaa waddanka. sidaa daraadeed nin walba muslim ama nin walba aqli leh waxaweyaan aqliga ilaahay wuxuu ku siiyey inaad ku garato wixii xun wixii fiicanna aad ku garato labadaba marka sidaa daraadeed waxaan kula talin lahaa dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan dalkii dibadda kuwa ku nool iyo islaamka dhan in ay taageeraan xiritaanka Itoobiya marka maalkooda iyo xoogooda iyo ra'yigooda iyo aqligooda inta waa magacaygu Cabdiraxmaan Baayir Faarax waxaan halkan ka taageersanahay shirka weyn ee ka socda dalka Eritrea gaar ahaan magaalada Asmara ay isugu tageen oqoladii iyo aqoonyahanadii dhammaan dadkaas oo ka wada tagay dalalka dibadaha iyo gudaha waddanka Soomaaliya waxaan shirkaas leeyahay shir aan noqdo shirkii lagu waara Soomaalidan ay ku nabad galaan Soomaalidan ay dawladooda ay ku wada helaan marka waxaan idin leeyahay ilaahay inuu u toobad keena dalkaasna waxaan macnaha idin rajaynayaa inaad macnaha ka dhigtaan dalkii xulooba ilaahay subxaanahu wa ta'aala taas waa ka baryay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Cabdiwali Saciid Qayliye ku nool Minnesota kana mid ah jaaliyadda Minneapolis waxaan taageersanahay oo rabaa inaan ka taageero halkan shirka Asmara oo xaq u dirarka iyo ummadda Soomaaliyeed inta ka naxaysa ay isugu timid aan rabaa inaan halkan maaragtay aan ka taageero waxaan kula talin lahaa inay talo fiican keenaan shir meel lagu qabto mar walba faa'iido ma lahaanayo laakiin waxaa loo baahan yahay in shirku uu noqdo shir miro dhal ah haddii kaleeto waa jiid aan ku jiide oo maaragtay wax dhiba oo wax ka soo saaciday meesha male رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Sheekh Abdi Ahmed waxaan ku noolahay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka galay baan rabaa inaan sheego inta galay hadal yar baan ku horumarinayaa waxaan farahayaa maaragtay dadka Soomaalida ogaadeenaya inay maaragtay gumaysiga madow ee Itoobiya boqolaalka sano haystay inay maaragtay meel soo wada jeedsadaan ayna maaragtay iska xoreeyaan marka waxa weeye gumaysigu waa kansarna waxa weeye haddaan la iska goynin maaragtay wuu ku dilahaya marka waxa weeye nolol ka horeysa inaad xorowdaan xornimo nolol ka horeysa ma jirto marka waxa weeye inaad ka xorowdaan gumaysiga madow Itoobiya intaasaan Soomaalida walaaliina farahaya Soomaalida Jamhuuriyadda hay'adda walaalaha waxaan leeyahay midooba waxa la wixii dantiina wada ee maaragtay midnimo iyo ummadda ayaheeda iyo lagu gaarahayo hala taageero midda kale waxa weeye xoolo haday ka lumaan raadka la qala raadka haday bixin dib baa loogu yar noqdaa Soomaalida iyadoo qabiil iyo xu kala qaybsan ayaa waxa weeye ururka SWL marka laga soo aasaasay Soomaalida ogaadeenaya marka kiiba waxa weeye midnimadii iyo jacaylkii iyo Soomaalinimadii beeray marka urur siyaasi oo xeer qoran leh dib ugu noqdaa isku daba wareegaysan markii dawladii burburtay waxa Soomaali jiritaankeedii la waayay urur siyaasi oo xeer qaxan maaragtay madax leh mabdiisu cad yahay maaragtay ururka hal sameey kaasa marka midnimadii iyo lagu helayaa maaragtay maslaxadii ummadana ay ku xalismaysaa marka ururka siyaasadeed hal sameeyaan wallahi shacabka Soomaalida meel kasta ay joogto hana la taageero wixii wanaag wada oo dhan wixii gumaysiga wixii raacana waxa weeye meel looga soo wada jeesto wixii gumaysiga nin raacay iska daaba guuriga gabdhaanu siinay gacalkiina hamoodina guryaheena yay gali waalidkaba gurboodkii gogiisii laga jiray gafaf badan markuu galo waana geli wada gurigu ka cayrshaa kansar gacanta uu galo waa loo gooyaa gumaysiga ka sii daran marka waxa weeye gumaysiga saasaan leeyahay marka dadka iska ka digtoonaan leeyahay meel kasta shacabka Soomaaliyeed ku nooshayba
midda kale waxa weeye ihadhigta waxaan idhi ihadhigtan kuwan ma la siiyo ihadhig hal baan abaal baaban kuu galay inkastuu abwaan yidhi abwaan hore sidii ina abeeyso koriyo adigaa u aayi ahdi male ihadhig ahdi male axmaaradu ahdi male abasiiniya ahdi male etoobiya lagu aamina talyaaniguna wuxuu maskax badi gashay leedahay maskax caqli gala ma laha buu italyaani wuxuu yidhi caqli male etoobiya abasiiniya ihadhig lagu aamina ogaadeenaya waxay tihi abaal male akhlaaq male awood male aqoon male ahdi male abasiiniya ihadhig lagu aamina waxa weeye alyadiya kibir baa ogaadeenaya keentay armiya rasaasku abaalkooda weeye tigray ha u ixsaan fadhin aaduga ma lasana ununkan ka jiraya ama munaasifij agtiisu jeelkii ku uraya ihadhig hal baan idhi axmaara eedo maxaa ii lahaaye meelaha ka oydahay eersan adiguna anigu kuuma yeedhaan arligayga ii dhaaf moogta gabayga haddaan usoo noqdo gabayga magaciisa waxaa la yidhahdaa gobannimo marka waa gabay dheer in yar baan ka soo qaadahaya waxa weeye galad eebba weeyaan inaan garanay dawgeena gudcurkiiyo madowgii ma jiro galalac weeyaane gadaankii haddaan haysto oon weliba soo giirtay gulufkii geeleenii la tegay la isku soo gaadhi maanta way geelku dirirtiye godadka iyo gawgiyo waryaan xidh laydiin gelina gaadhka iyo waardiya badshiyo gaadayna dhowra golayaasha doodaha waryaan gar lagaa helina guurtii gabowday mici giir dirsada taariikhaha goobtay golduleele gabidhac iska jira guluuc qarsoonaata guntintaad xidhaan yaa la furin gadana raadkiina gogalaysi weeye haddeer god cilada fiirso garridii afuufo colaad ugu galaydhiyay gooni baadhka garab saardabaro gumaca shiishkiisa gaashaanqaad gambooley dhammaan weerar ugu gaasha gurdan oratan mooyee dadkaygo gaatan socodaaya gaasasiiyo guutooyin duma guura bahleeya go-aankay jawaxa gaadha waa inaan guddoonnaaye gurbaanka u tuma golo dhexiya gaashaandhiggeeniiba guddidii la doortay hawshii oo gingiman keena haddii kale dad baa gudan hayee gees isaga taagay giraangiriya kubadda oganoo goolqoobta u gooya garoonkii hadday dhaaftay oo rigoorihii gaadhay goolkiiba soo dhex gashay shabaqa gaadhsiiya goordhoway ka yaacayo innagaa gobaha joogeen geedigan hayaankaee garkiiyo gibilka loo giijay godankee jardan soo gelbinno aan xornimo gaadhno guusheen ilaa aynu hello libin ku geeraaro gadaal dambana hawlaabanina calanka guud saara gadaal